magacaygu waa Abubakar Axmed Xuseen oo ku dhashay magaalada Muqdisho waxaa ka baxay jaamacadda Jamhuuriya 2016 waxaa bartay IT kadib IT hadee magaalada shaqo wax badan ka raadiyo waana ka waay saas darteeda boorkan inaa sameystay u galay computer IT information technology jaamacadda Jamhuuriya wax badan shaqo raadiyay oo waana la ilaa hadda meelo badan TV-geey shaqooyin la soo bandhigaa cadaawagee waa walina wala codsigaas oo ku socdaa dhammaan kambaniyada shaqooyinka dhibo oo wadanka ah dhammaan waxaana kambaniyada shaqada dhibo iyo qof walba shaqo heli karo oo shaqo qof IT oo professional oo wax bartay qof ka faa'iideysan aqoonteeda iyo diyaar ugu ah ugu shaqeeyo wallahi sax waaye boorka qarash badan ay galay lacag aad u badan oo daabicidii design-ka aniga iskale oo Photoshop ku sameeyay laakiin markii laga reebo daabacaadda iyo printerka iyo safarsamada iyo laamiga ila sustidi waa waqti badan waay qarash badan ay galay lacagtaas deen waay oo wiil in la shaqo soo deensado nina saaxiibay marka deentaas darteed waa soo deensaday haddana waxaa rabaa inaan mid kala deensado oo boor kale magaalada meel kale u dhaad isgoyska laga go'o waxaa rabaa inaan isgoyska dadka kale ku dhajiyo si ummadan Muqdisho caasimada dhan degan inay u arkaan ila shaqaalaana shaqada oo hel hadda xaas caruura leeyahay laba caruura iyo xaas leeyahay inkastoo irsaaqada ilaahay qor haddana wax ugu weyn oo ku fikirayo oo raadinayo waxay tahay ilaahay naga xudiisanayso على raba adduun iyo aakhiraba inaa weydiiso اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار lagu duceystaa marka qofka hadii aakhiro iyo adduun bila loo fiican rabina ku noolaado muhiimadeedu ugu weyn wallahi hadda kamban X ina dhaxma rabo laakiin kambaniyada magaalada shaqooyinka bixiyo kulli mid aan CV u geen male ayagana ka warqabaan qaabka shaqada loo bixiyana qof walba Soomaali oo maanta wacyi gashan oo wax fahmayo oo fahmi kara shaqada wax la haayo oo la siiyo oo jilaac la isku siiyo mid anigana adeer iga dambeeyo oo kamban madax ka ahna ma jiro marka waxa codsanaa qof walba oo barnaamijkayga maqlo oo codkayga soo gaaro boorkayga arko hadii shaqo uu heli karo inuu siiyo boorkan waxa uu kalifay ana jaamacadda dhexe sanadka ina sameeyo laakiin way isu tagali weys oo shaqo macnaha boorkan ma ahayn ina sameeyo muhiimadeedu ugu weyn waxay ina shaqo helo sanad ana jaamacadda dhexe raadinayay بعد لبا سنه جامعه markii dambe 2016 kadib waa raadiyay waa waay marka maskaxdeedii intaan ruujiyaa kadib qofka doo in badan fikiro marka dambe wax cusub ku dhaalnaa jaamacadaha si loo ogyahay waa total qarash meera waa qofka waxyaabo iska qaadaa jiro buugaad waa nolol adag ay ahaayeen aabe iyo hooyadii diiway laakiin waxa la rabaa wixii aad soo baratay iyo qarashkii iyo waqtiga in waxa rajaynayso waxa inaan mustaqbal fiican iyo nolol fiican gasho wixii wax ka duwanaan magaalada yaal wallahi dhalinyarada qaasatan dhalinyarada qofka hadii dadka badan waxay dhahan qofka muxuu hal abuur u sameeysan waay hal abuurka sameeysanaysid waxa laga rabaa ina kharash aad sameeysid kharash hadaad haysanna kharash lagu sameeyaa wax walba abuureed kharash hadaad haysanna waxa sameyn kartid mal waa isku dayay iskuulan ani team kala aasnay oo anaga jaamacadda dhiganayo wala ana kobciyaa laha geed jecel oo ku yaalay computer laga dhigay qarash la'aan awgiis oo socda guriga kira waay korontada waa lacag waay biyaha waa lacag macallimiinta lacag ay rabaan adigii lacag harta transport harta wixii waa iskeen waay markii dambe kadib inaan ka fadhiisano baaga moodo noqonay danta noo kala